wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaasha gobolka Bay ee degmada Baydhabo ayaa maanta furay mashruuc kor loo qaadayo maamulada dawladaha hoose iyo waliba sidoo kale lagu dhisayo aqoonta bulshada deegaanka kaas oo ay soo qaban qaabisay hay'adda CBD oo taageero ka helaysa JBLG munaasabada lagu furayay mashruuc la doonayo in muddo hal sano uu ka shaqeeyo magaalada Baydhabo isla markaana la doonayo in kor loo qaado maamulada dawladaha hoose sidoo kale lagu dhisayo aqoonta bulshada deegaanka kaas oo ay soo qaban qaabisay hay'adda CBD oo ka shaqeysa arrimaha nabadda iyo dimuqraadiyadda waxaana sidoo kale mashruucan taageeraya hay'adda JBLG barnaamijkan oo ujeedkiisu yahay in la ogaado baahiyaha bulshada magaalada Baydhabo iyo waliba istiraatiijiyadda ugu habboon ee ay ku wada shaqeyn karaan maamulada iyo shacabka magaalada Baydhabo ayaa waxaa munaasabada ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Bay iyo gudiyada xaafadaha magaalada Baydhabo haweenka dhalinyarada iyo waliba odayaasha dhaqanka ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay Abdi Xaliim Bashiir Macalin oo ah madaxa hay'adda CBD oo isagu faahfaahiyay inta qaybood uu ka kooban yahay mashruucani kulli mashruucan soo sheegay walaalkay Muxtaar waxa loo yaqaan JBLG kulli inta badan waa maqasheen Joint Program for Local Governance وسطك هيدا UN أنت بدن حقوق المالجلنا وسطك شن هيدا UN UNDP كوتهاي UNICEF ILO UN Habitat UNCDF وأنت سو هيدا مركب وحلاو تلاقي أنت بدن إن لقى عاوية دور ميلاد دور قيود ولا هاي UNDP قيب بيكعاوسة أنت بدن هذا UNICEF بدن كهلا هيدا كهلا UNICEF بدن كهلا مشروع UNICEف على وضعنا JBLG CPD Center for Peace and Democracy حرمت تهاي دور مال كشغل كونفورت سوماليا مشروعا ومشروع كسب civic education مشروع لو يقان civic education أفكار غلط لكن الصومالي لو يقان علمي المدنية وقيب مهم صار مشروعا وكهلا لكن وحكى لو كنت لو يقان consultation ولا تشي بلشة إن بلشة أفر تحافظات بيدو وقديم يكون إن كاستاد طبعا إيجارين لكن أفر تحافظات صليني qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo qayb gashay mashruucan munaasabadan ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay mashruucan la doonayo in kor loo qaado aqoonta bulshada magaalada Baydhabo وين أرفعناهم Baydhabo way ba kala hayte marxalado oo lambaahnaay oo leesidii oo 22 sano la hamari iyo dadkaan oo dawladoogi hore runtii faa'iideysana ama haatay inagu walbarashada ama haatay adeegyada bulshada dawladdu way ku wada soconay lan askari loo weydiyo oo la qabado markii la qabado wadi boqonik biyaanisi oo dawladdu bangalan member xalada ma aan ka hadlo dhalinyarada ka sokow haweenka yani position kay leeyihiin oo waxaan horta u hadcelinayaa hay'adan iyo barnaamijkan loo qabanayo dhalinyarada waa muhiim dawladdan koonfur galbeed waa dawlad cusub oo dhismaysa una baahan in la garab galo waxa garab galayana waa dhalinyarada iyo dadka ka soo jeeda gobolada dawladdan xalada koonfur galbeed waxa loo baahan yahay in badan inay wax ka qabtaan wadankooda waxa loo baahan yahay dhalinyaro adeegta una taagan xubintooda dawladdan koonfur galbeed markii la fiiriyo waa dawlad curdun oo dhismaysa waxay u baahan tahay garab qabasho fara badan waxaan in badan u baranay hadaan hay dhalinyarada ama bulshada Soomaaliyeed in badan burburka uu ka socdo dhankeena hase ahaatee burburka markii loo fiiriyo dhalinyarada waxa ku jirta dhalinyaro Soomaaliyeed ama sidaan ognahay wada joogan magaalada Baydhabo iyo meel waliba in markii ugu horeysa aan leeyahay maxaa la yiraahdaa aqoon dhalinyaro badan waxa jiraan aqoon leh ku jirta qiiradii wadaninimo laakiin hadana aan haysan codad u soo bandhigtaan Malaqdeero oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee markaasi ka soo qayb galay munaasabada oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa shacabka ugu baaqay inay ka faa'iideystaan mashruucan maanta la furo una koonfur galbeed Soomaaliya shacabka ka nool sida oxygen-ka daqiiqadinka baahan yamaanka baahana wal barasho iyo wacyigelin xagga dawladda namayaw lan wal baran oo wal baran wal faa'iido leeyma leh markan ka horeeyay in wal baran wala la barado cilmiga bulshada naqda lan wal baran wal caafimaad la helo
gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin ayaa isaguna kula dardaarmay dadka inay ka faa'iideystaan mashruucan cusub. degmantan isqoyna in guddiga barnaamijkan sisootin marro may bilaaw doonaan barnaamij oo kamid ah maarne maamul wanaaga oo hadda ka bilaaw doona degmada Baydhabo oo barnaamij wada jira oo shankeedu sakaal hayta oo UNDP iyo UNICEF iyo UN Habitat iyo ILO marka barnaamijkaasi may kamid ah barnaamijkiisa oo hadda bilaawadaya maarnaya isqoynaha sudon madamaasha la gaabin karisan JPG ilaa ومامل وناقة قاب مامل كإلا مارنا عيب دورشة يعرفه يا مارنا يا يكسبسي ما يمكن يبغى كان هذا sidoo kale gudoomiyaha gobolka Baay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa isna ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay mashruucani. marka qodobkan ku horeeyay reertu walaal ku hadalay maamul wanaagsan nooceeyo in la soo soo koro dadka dareemaan markan ku horeeyay ما دي يقولون قف كسته ونوميده حقوق ذس وسدد كله حقوق سدد كله ما تبغى مودان لو هذا لو حقوق وسدد لكله إن شاء الله على رأي نفتي درهم مهمة نيجته ولا قف كبنا هذه هو بس درهم سناينا ولا بس حق نلاقي ويلو كيار والحجين هاي نيوز بدي سو الحجين هاي الوديو أمسي والحجين نيوز بدي هايوان غلط نسوبي هو بس بقى إن حجين ملش يالا حتى لو صار شبكة إيه حدي له حدود صدق بس لكن هذا مسوسيبه واي موديس مركا برشيد الموبايل فلاي ما دون إني فهمت حقوق ده إني قبل إني معمول كي جاي يقدر كلي كي يون ولي لك لي نيوشل فهمان لما هذا صدق بس أصل ليش هالقاعد أساس فهم مركا واحد يقولي تاسيتي ما دل دير وقت إيه أو بنقدر ترادية FM كنقدر أما TV نقدر أما دوداي وبنشوف لنا حقوق إبلاس نقدر كي فرميت دير سيفدي ده كنت في اليوم مرة كنت في اليوم هو فرميت تاسيتي شخص اللي يصبروا أما اللي شاكي يسدو فيد ما دل دير اللي يندرس هنا أما أفكار تسمس فكر كاس بديله وزير ku-xigeenka haweenka binti Umar iyo waliba wasiirka dhaqan-celinta iyo tababarada maleeshiyaadka Xasan Xuseen Xasan Eelay ayaa iyana halkaasi khudbad dheer ka soo jeediyay inay dadkii bulshada Baydhabo ee wixii aqoontooda iyo kraankooda ay ku kaalmeeyaan gaarsiiyaan wiilasheena iyagana aad ayay u mahadsan yihiin waayo waa jiilka cusub ee soo kacay ee inaga naga dambeeyay gabdhaha ka soo qayb galay sida gabadha ka hadashay Faadimo kale wax fiican ayay sheegtay iyadana Ilaahay wax fiican siiyo oo u mahad celinaya iyo gabdhaha lamida tan xigta hadal intii la dhihi lahaa waa la yiri oo mid walba midkii ka qiimo badnaa waa la sheegay iyada siin kama hadlagaan ma la siin ku faday in maamulkiin la shaqeeytan wala la siin ku weerahay maamulku lanko ilaa mu talab badan iyo wanaag badan in siin ku boolisin ku weerahay in aysan maamulka naga dad Soomaali ee raacweyn ee reer koonfur galbeed reer Baydhabo ee talada dalka wanaagsan ha ku baahasan in naga taga la siin faday wala saas leen weela ayon may la aragay dhibaato badan oo isku jirto ana hadda si gud galaan inay Baydhabo hadda tumansuuq isku ku dhisanta bershow leeyahay ganacsadahay tumansuuq leeyahay tumankaasuuq beesas gala fadhi oo jiditay la dhisna wal badan horumar ay haada fadhi bulshada ee horumarshay haada fadhi may fadana insha Allah dadka nasiibka la haada doon inay barnaamijku ku qayb qaadaan islaamka qiyaas oo dabban ilaa ay boqolaal ku qayb qaadan doon dadkaas barnaamijku Ilaahay nasiibku ku weelo ku qayb qaadaw inay nagadaan horta dad wal fahmaa inay nagadaan codsadaan dad wal fahmaa inay nagadaan dad wal fahmaa markaan siin la dadka dhan wala fahmaayaan laakiin dad aqlaga saaxiib inaya oo dalkum inay laamen baahanya inay nal baahanya inay bundooyin baahanya inay iskool baahanya inay barnaamij kale baahanya inay nagadaan la faday oo dad wal korda bulshada wal korda inay la kumir asayaashe mashruucan ayaa waxaa soo dhaweeyay guud ahaanba bulshadii iyo mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulanka Sheekh Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo kan